ciidanka Soomaalida dagaalkan Ethiopia iyo Tigray ka dhaxeeya ka qayb galay oo dhinaca Eritrea ka soo galay in tiradoodu ay guuto iyo bar gaafar gari ay gaarayso ciidankaas oo ka dhinaca dagaalamay ciidamada Eritreaanka oo dagaalka kula jira Tigrayda oo gacan fiiraya Ethiopiaanka waxyaabahan aad uga naxay oo runtii wax nasiib darrana wax laga naxo oo xanuun badan ahna waxay tahay in la sheegayo inay dhinteen ilaa 400 ku dhawaad ciidanka Soomaalida ay dhinteen ilaa boqolaalna kalena ay dhaawac yihiin dhaawacoodii iyo dhimashadoodiina ee la geeyay meesha la yiraahdo ka Eritrea iyo goboladan Ethiopia dhinacan soo xigta Tigrayga la xigta marka niyahow waa runtii waa wax xanuun badan oo nasiib darrana in ciidan Soomaaliyeed ka dagaalamaan dhul aysan lahayn oo 4 gaaraya haddana la kisano Soomaaliya madaxtooyadeedii iyo dekedeedii airportkeedii jidadkeedii ay waardiinayaan ciidamada ajnabiga ciidan la leeyahay maanta wadanka uu gacanta ka sii baxayo taasuna waa runtii caqabad kale oo iyada taalo qof kasta Soomaaliya maanta muuqata laakiin waxa ka mudugooda waxay tahay in 4 oo dhalinyaro iyo waliba ka badan laga yaabaa meeshaas tababar loo geeyay noloshooda wax ka bedelaan loo geeyay in ciidan qaranka Soomaaliya difaacaan loo geeyay kastoo qaarkood inta badan loo sheegay in la geey doono qadar iyo meelaha maartay nolol iyo mushaar fiican ka heli doonaan haddana maanta ay ka dagaalamayaan nool iyo geeri ku sheega waa maasanta marka la hadlay way xaqiijiyeen dhimashadu inay aad u tiro badan tahay waliba waxay u dhaheen 900 ilaa 1100 qayb ka meel dhan ay galeen inaan wax badan ka soo noqonay u badan tahay way baabeen ilmihii Soomaalida marka wax dhaawacyo ma lagu sheego hadda nool oo dhaawac qaba oo dawo ama daryeel helay warbixintaada ma ku jirtay lagu sii waxa la sheegay dhaawacu 370 ma leeyahay dhimashada inta la og yahay meel ay ka dagaal galeen inta soo boqol oo ku dhawaad ama iyo waxba ay ka dagaal galeen oo lagu yiri wax badan kama soo laaban iyo dhinacyo kale oo aydan sidoo kale lagu laayay dhaawacii hadii oo meel lagu sheegay la arag oo wadankii loo soo celinayay dhimashadiina qof xaqiiji kara oo san jirin maadaama ay tira kooban oo dagaalkii ku galeen maanta Soomaaliya xageeda laga xaqiijiyay san jirin waxay ku sheegaysaa meesha inuu dayac iyo halaag badan ka jiro waxay kale ii sheegeen saraakiishaani ciidanka Soomaalida inay hogaaminayaan saraakiil Eritrean oo aysan lahayn hogaan Soomaaliyeed waa garta asana ay keenayso inaan iska warqab jiray soo taraya ayaa sheegaya in ay jiraan ciidamo badan oo Soomaaliya oo dagaalkan ka qayb galay maalmihii asbuucyadii ugu dambeeyay si dagaalkan hadda Eritrea bal Tigrayda iyo bilowga Tigrayda iyo Ethiopia ku bilowday waxaa jiray warar badan oo soo taraya oo sheegaya in ciidamada Soomaalidu ka qayb galeen dad badan oo waalidiin oo idaacadaha iyo social media ka qaylinayo ilmahoodii meel kulana waa jiraan almost muddo sano camal ah oo socod hadalkaas baaritaan marka aan sameeyay iyo xiriiraan la sameeyay meelo kala duwan waxa la xaqiijiyay